بسم الله الرحمن الرحيم ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu ku wargelinayaa ummadda Soomaaliyeed ee degan dhismayaasha dawladda ee ay lahaayeen jaamacadda ummadda Soomaaliyeed, xaruntii wakaaladda madbacadda qaranka iyo xaruntii bangiga dhiigga Soomaaliyeed oo kala hoos yimaada wasaaradaha uu qoraalkani tooska ugu socdo ee kala ah wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare, wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska iyo wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya in ay muddo 7 cisho ah oo ka bilowda 26 bishan May 2019 kuna ee 1 Juun 2019 kaga guuraan dhismayaasha aan soo sheegnay oo ay hay-adihii lahaa u baahdeen si loogu qabto adeegyadii bulshada ee danta guud loogu talagalay. isla mar ahaantaasna waxaa taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir la farayaa inuu baneeyo dhismayaasha dawladda ee aan kor ku soo sheegay marka la gaaro 2 bisha Juun 2019 isaga oo la kaashanaya ciidanka ilaalinta deegaanka ee dawladda hoose iyo fadhiyada kale ee booliiska ee uu uga baahdo in ay gacan ka siiyaan hawshan. waxaa qoraalkani ka soo baxay iyo wargelintani xafiiska taliye xigeenka koowaad ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed sareeye guuto Siciid Kadiye Axmed. dadweynaha marka waxaanu ka codsanaynaa barnaamijkan oo dhowr goor hore idaacadaha ka baxay, waxaanu maanta ugu celinaynaa inaan ku sii adkayno in muddada haddii la gaaro hawshu bilaaban doonto, dadkuna ay u tabaabushaystaan hawsha kusoo foolle noona baneeyaan dhismayaashaas dawladdu u baahatay. waad ogtiin siyaasadda dawladdu waxay ahayd dhismo aan loo baahnayn inaan la taaban dadka degan, haddii loo baahdana waxay ahayd inay dadweynuhu gacan ka geystaan sidii loo fududeyn lahaa baneynta dhismahaas. waxaan ka codsanaynaa saddexda dhisme dadka degan ee Soomaaliyeed inay gacan ku siiyaan ciidanka booliiska inuu fuliyo waajibaadka sharcigu ka doonayo oo ah in la baneeyo dhismayaasha aan soo sheegnay.